بسم الله الرحمن الرحيم سو دواada mar kale iyo barnaamijkii xulashada wararka qodobada barnaamijka saaka aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah iyadoo kor ay u kacayso xiisada gobolka bariga dhexe isla markaasna ay socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo laga dareemayo saldhigyada ciidanka Mareykanka ee gobolka ayaa Iiraan waxay heegan buuxa gelisay saacadihii la soo dhaafay nidaamyadeeda difaaca dhinaca kale madaxweynaha Iiraan ayaa si buuxda u sheegay in dalkiisa uusan ku tala jirin samaysashada hubka nuclearka laakiin si adag uga jawaabi doono haddii la soo weeraro Trump ayaa isna sheegay in ay u muuqato Iiraan inaysan joojinayn kobcinta uraniumka isagoo rajaxmo ka muujiyay heshiis ay gaaraan labada dhinac sidoo kale barnaamijka waxaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza iyadoo dagaalyahanada iska caabinta Falastiiniyiintu ay qararamsadeen taangi kale oo ay leeyihiin ciidanka Israa'iil iyadoo dagaalo gacmaha la isula tigana ay ka dhaceen Khan Yunis Israa'iil waxay sheegtay inay heshay meydka maxbuus kale Netanyahu oo ka dalbaday maamulka Trump in uu dhexdhexaadiyo Israa'iil iyo maamulka cusub ee Suuriya laakiin maxay tahay shuruudda la aaminsan yahay in Ahmed al-Sharac uu ku xirayo heshiis uu la galo Israa'iil maxay yihiin shuruudaha Netanyahu uu wato xog baan idinkaga haynaa kumanyaal muslimiin ah oo dalka Faransiiska isaga tagay sababo la xiriira falalka islaam nacaybka iyo cusurniyada oo noqday tusbax afka laga furay dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warah ee soo kordhay inta hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka xulashada wararka soo dhawaada mar kale daawadayaal si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbinayno haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka saaka waxaynu ku bilaabaynaa xiisada gobolka bariga dhexe xaaladda bariga dhexe oo bariga dhexe maraysa waxaana soo baxaya warar kala duwan dhaqdhaqaaqyo ciidan baa jira Mareykanka ayaa dhimaya shaqaalihiisa safaaradaha ku yaal wadamo dhowr ah oo qaliijka dhaca Iiraan heegan buuxa ayay gashay waxaana lagu soo waramayaa dhanka Israa'iil sidoo kale dhaqdhaqaaqyo inay ka socdaan inta aan idin soo gudbin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo rajaxmo ka muujinaya wada hadaladii u socday Iiraan iyo Mareykanka aynu ka hormarno madaxweynaha waddanka Iiraan hadal uu jeediyay fiidnimadii xalay kaas oo kaga hadlay xaaladda imika sida ay tahay madaxweyne Mas'uud Pezeshkian ayaa mar kale xaqiijiyay in dalkiisu uusan raadinayn hub nuclear waxaana hadalkan uu jeediyay kadib markii Mareykanku ay sheegeen in suurtagal ay tahay haddii wada hadaladu ay fashilmaan tilaba military oo ka dhan ah Iiraan Pezeshkian ayaa waxa uu sheegay in Tehran ay la hadlayso Mareykanka iyo Yurub laakiin aysan ogolaanin wax cadaadis lagu saarayo madaxweynaha Iiraan waxa uu ku nuuxnuuxsaday in cadawga Iiraan ay isku dayayaan in ay kiciyaan khilaafaad gudaha si ay u weeraraan dalkiisa balse wuxuu ku adkaystay in ay fashilmi doonaan weeraradaasi dhinaca kale ergada Iiraan ee qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in Mareykanka gaar ahaan taliska dhexe ee Centcom uu door ka ciyaarayo qalalaasaha gobolka isla markaasna hub uu siinayo kuwa gardaradooda iyo taageerida sida hadalka loo yiri dambiyada Israa'iil isla markaasna aysan jirin wax kalsooniya oo Mareykanka uu kaga hadli karo nabad iyo xakamaynta hubka faafa Iiraan waxay sheegtay in diblomaasiyaddu ay tahay xalka kaliya ee lagu xallin karo dhibaatooyinka jira laakiin aan la adeegsan karin awood military warkan war la xiriira madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna saacadihii la soo dhaafay waxa uu muujiyay in Iiraan aan laga aqbali karin in ay samaysato hubka nuclearka waxaase uu muujiyay shakiga ah in Iiraan ay joojinayso kobcinta uraniumka isagoo tilmaamay in ay yaraanayso kalsoonida arrintaasi uu ku qabo waa si hadalka u dhigay Trump waxa kale oo farta ku fiiqay in uu rumaysan yahay in markii hore ama uu aaminsanaaba Iiraan in ay ka tanaasuleyso barnaamijkeeda nuclearka laakiin kalsoonidaasi si tartiib ah hoos ay u sii dhacayso labadii bilood ugu dambeysay waxaana farta ku fiiqay in Iiraan ay u muuqato inay adeegsanayso xeelado ay waqtiga ku dilayso isla markaasna dib u dhac ay u sameynayso madaxweynaha Mareykanka ayaa mar kale ku celiyay in Washington aysan sinaba ku aqbali doonin in Iiraan ay samaysato hubka nuclearka amaba ay kobciso uraniumka ilaa heer xad
lagu samayn karo nuclear xitaa haddii la gaaro heshiis amaba aan la gaarin dhinaca kale waxaa soo baxaya warar kala duwan oo la xiriira xaaladda gobolka bariga dhexe oo u muuqanaysa inay kasii darayso waxaan xalay barnaamijka qubanaha idinkugu soo gudbinay safaaradda maraykanka ee baghdad in laga saarayo shaqaalaha maraykanka ah sidoo kale waxaa la sheegayaa kuwait iyo baxrayn dhaqdhaqaaqi inay ka socdaan saldhig maraykanku uu ku leeyahay waddanka qatar ayaa isna waxaa la sheegayaa dhaqdhaqaaq ballaaran inuu ka socdo iyadoo waaxda gaashaandhigga maraykankuna ay ku wargelisay dhammaanba qoysaska iyo shaqaalaha aan muhiimka ahayn ee saldhigyadaasi ku sugan in halkaasi ay iskaga baxaan arrimahan ayaa sidoo kale waxay ku soo aadayaan iyadoo maanta aqalka koongareeska waddanka maraykanka la filayey inuu hor yimaado taliyaha taliska dhexe ciidanka maraykanka michael corella ayaa waxaa la sheegayaa in la baajiyey wadahadalkaasi dhici lahaa sababtuna ay tahay baa la yiri iyadoo ay socdaan xaaladda gobolka ka taagan waxaa kaloo soo baxday saacadihii lasoo dhaafay digniin shirkadaha maraakiibtu ay u jeedinayaan maraakiibtooda kuwaasi oo gooshaya khaliijka iyo badda cas sababo la xiriira xiisadda kor u sii kacaysa waxaana la sheegayaa in arrintan ay u muuqanayso mid xaaladda uga sii daraysa war goordhaweyta soo dhacay ayaa waxa uu sheegayaa in shabakadda Axios ay sheegayso mas-uuliyiin maraykan ah inay tilmaamayaan in aysan suurtagal ahayn inay dhacaan wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan wareegooda lixaad oo la filayay in maalinta axadda ay dhacaan laakiin waxaa la leeyahay wadahadalladaas waxay u muuqdaan in markaasi aysan dhici doonin sida ay goordhaweyta tabisay shabakadda Axios xaaladdan waxay u muuqataa mid cakiran waxaa kaloo soo baxay war sheegaya waaxda amuuraha dibadda waddanka maraykanka inay ku tilmaamtay sababaha loo dhimayo shaqaalaheeda safaaradda ay ku leeyihiin maraykanku magaalada baghdad inay tahay xaaladda gobolka oo la qiimeynayo iyo islamarkaasi isbedelada ku aadan colaad dhacda arrimaha dhan waxay ku imaanayaan kadib markii shalay wasiirka gaashaandhigga ee waddankaasi iiraan casiis nazarzadeh oo wacad ku maray in ay duqayn doonaan dhammaanba saldhigyada maraykanka oo ku leeyahay gobolka bariga dhexe isagoo sidoo kale tilmaamay in ay tijaabiyeen gantaal qaraxyada uu sido ay tiradooda gaari karto ama miisaankooda uu gaari karo ilaa iyo 2 tan arrintaas waxa la leeyahay waxay noqotay walwal aad u ballaaran waxay u muuqataa ayay khubaradu leedahay iiraan inay isku tashatay go'aanna ay gaartay go'aankaasi oo ah haddii la soo weeraro dhammaanba saldhigyada gobolka inay weerarayso arrintaasi su'aalo badan ayaa iska weydiinayaan khubarada waxaa muuqanaysa dhanka maraykanka iyo israa'iil inay yaraysanayaan baa laleeyahay awoodda iiraan laakiin khubarada arrimaha militariga waxay leeyihiin iyo kuwa istiraatiijiyadda dagaalka iiraan waxay awood u leedahay inay duqayso iska dah saldhigyada ku yaalla gobolka bariga dhexe xitaa saldhigga maraykanku uu ku leeyahay jasiiradda badweynta hindiya ee diego garcia waxaana tusaale loo soo qaatay diyaarad daroon ah oo 4,000 oo kilomitir gaari karta oo ay dhawaan tijaabiyeen ciidamada iiraan waxaa kaloo la sheegayaa iiraan inay heegan gelisay nidaamyadeeda difaaca hawada iyadoo warkun intaasi ku darayo tani inay ku soo aadayso xiisadda gobolka waxyaalaha iiraan ay ka fakaraysay sidoo kale waxaa ka mid ah in ay xirto marinbiyoodka la yidhahdo hormuz oo ah marinbiyood muhiim ah oo ay ka gooshaan maraakiibta shidaalka qaada ee ka baxaya wadamada ciraaq iyo kuwait qatar iyo baxrayn arrintaasi oo leeyahay waxay keeni kartaa qiimaha saliidda adduunka inuu sare u kaco suuqyada saliidda waxaa la sheegayaa in laga dareemayo dhaqaaqa sare u kaca sababtuna ay tahay xiisadan gobolka ee bariga dhexe ka aloosan waxaa la leeyahay haddii netanyahu damacan uu wato ee ku riixayo maraykanka dagaal uu dhaco gobolka bariga dhexe inuu gobolka isla gubta ayaa dhici karta iyadoo la leeyahay tani waxay ku imaanaysaa hadaladii ka soo yeeray iiraan ee ahaa in haddii la soo weeraro dhammaan gobolka ay iyadana gubi doonto waxaana la sheegayaa wadamada khaliijku in ay wadaan dadaalo dhanka diblomaasiyadda oo maraykanka ay ku riixayaan in laga baaqsado weerar dhaca maxaa yeelay dhammaan saldhigyada gobolka ku yaalla ha noqoto ciraaq kuwait sacuudiga baxrayn qatar imaaraadka carabta cumaan iyo xitaa waxaa laga hadlayaa suuriya in markaasi la beegsado arrintan waxay noqon kartaa baa leeyahay halis aad u weyn isla markaasina keeni karta xitaa dagaalkii saddexaad inuu dhaco ee adduunka iyadoo qayb ay ka noqon karaan quwadaha caalamiga ah
oo markaas laga yaabo inay la saftaan Iran waxa kaloo leeyahay Mareykanka waxa walaac ku haya wadamada reer Yurub oo dagaal aan doonayn laakiin doonaya Iran in cadaadis lagu saaro dhanka diblomaasiyadda iyo cunaqabatayno si loogu qasbo inay joojiso bacriminta uraniumka ama ay gaarsiiso heer nuclear ay ku samayn karto laakiin warku wuxuu sheegayaa Netanyahu inuu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulayo sidii Iran loo weerari lahaa arrintaasna waxa kaloo leeyahay waxa ku lamaasan hanjabaad uu horay u soo saaray taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iran oo sheegay 2,000 oo gantaal kaliya inay ku sii jeediyeen Israa'iil oo haddii la soo weeraro gantaaladaasi hypersonic ah kuwa guuxda ka dheeraya nooca ballistic ah iyo cruise missile inay ku weerari doonaan waxa leeyahay Iran waxa suurtagal ah in la xanuujiyo oo dhibaato loo geysto laakiin ayaduna dhibaato ay geysan kartaa maxaa ka dhalan kara ayaa la isweydiinayaa haddii la duqeeyo xarumaha nuclearka oo Israa'iil markaa la duqeeyo xarumaha nuclearka bacdama taliska ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay sheegeen inay xogtii dhawaan ay jabsadeen ay heleen dhammaanba macluumaadka ku saabsan goobaha Israa'iil ee nuclearka u yaal waxa kaloo la hadalhayaa ceelasha shidaalka ee gobolka bariga dhexe gaar ahaan qaliijka haddii Iran ay duqeyso maxaa iman kara xaaladan waxay maraysaa meel adag waxa la leeyahay diblomaasiyad kaliya ayaa shaqayn karta laakiin qori caaradis day tagto cidna biyo ka cabi mayso waynu arki doonaa wixii arrimahaasi ku soo kordha waa tahay waxaan u gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Gaza dagaalo dhacay iyo taangiyo ciidanka Israa'iil ay leeyihiin oo la beegsaday Netanyahu oo ka dalbaday Trump inuu dhexdhexaadiyo Suuriya iyo Israa'iil laakiin maxay yihiin shuruudaha labada dhinac ay kala wataan intaan u gudbin qodobadaasi iyo kuwa kale aynu ku hakanno qadar xayisiina wali waxaad la socotaan barnaamijkii xulashada wararka oo subaxnimadan Khamiista ah toos idinkaga imaanaya istuudiyaha iyaga koowaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo Telegram-ka warbixino qoraal ah faahfaahin iyo macluumaadyo kale waxaad ka heli kartaan barta internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka shalay ilaa iyo xalay wararkay waxaad kula socoteen dagaalo ba'an oo gacmaha la iskula tagay oo ka dhacay Khan Yunis halkaasi oo la sheegay masaafo ibran la isku helay khibradu waxay leedahay dagaalka caynkaasi oo kala ah ciidanka Israa'iil qasaaro ballaaran baa loo gaarsiiyay sababtoo ah diyaaradaha dagaalka ma qayb qaadan karaan Israa'iiltu waxay leeyahay inta badan waxay isticmaalaan duqeyn marka meesha la duqeeyo in ciidanka ay geliyaan laakiin xoogag iska caabinta Falastiiniintu waxay isticmaalayaan xeerad cajiib ah sida uu sheegay mid ka mid ah khubarada arrimaha gobolka bariga dhexe gaar ahaan dagaalka faaloota waxay sameynayaan mar alaal marka duqeynta ay bilaabato godadka dhulka hoostiisa ay galayaan duqeynta markay joogsato ciidanka Israa'iil ay dabcayna soo dhaqaaqaan ayaa meel walba lagaga soo baxaya guriyihii burbursanaa waxay noqdeen baa leeyahay guri kasta iyo qarx iyo qori gaar ahaan Khan Yunis haddaba aynu eegno warbixin telefishinka Al Jazeera oo sii daayay oo ku aadan qasaaraha ugu dambeeya ciidanka Israa'iil loo geystay guutooyinka Al-Qassam garabka hubaysan ee ururka Hamas ayaa waxay sheegeen taangi ciidanka Israa'iil ay leeyihiin gaar ahaan nooca Markava ah in la laqsiyay qoriga Al-Yasin 105 isla markaasna lagu qaranamsaday deegaanka la yiraahdo Batni al-Salmin oo ku yaala koonfurta Mareykanka qaar ahaan Khan Yunis warku wuxuu intaas ku darayaa in dhowr aag oo ku yaala Khan Yunis dagaalo ba'an ay ka dhaceen habeenkii xalay waa la isku hoyday inkastoo saaka duqeyn waalan ay socoto haddana Israa'iil waxay qiratay 4 askari inay ka dhaawacmeen dhinaca kale Israa'iil waxaan xalay idin soo gudbinay in mid ka mid ah maxaabiistii meydkooda ay heshay warkan ayaa wuxuu sheegayaa maxbuus kale meydkiisa haddana in la helay oo ilaa iyo xalay laba maxbuus meydkooda la helay Netanyahu wuxuu ku andacoonayaa in ay arrintani ay tahay howlgal ay ka shaqeeyeen ciidamada militariga iyo Shin Bet waa laanta sirdoonka waxaana sidoo kale uu sheegay in si wadi doonaan dagaalka oo siyaadalku yiri ilaa iyo inta la helayo maxaabiista nolol ama geeri xaaladda ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ku sii jirto meel halis ah marayka qasad duqeyn culusna way socotaa waa hagaag inta aan idin soo gudbin warbixinta ku aadan Netanyahu oo dalbanaya in la dhexdhexaadiyo Israa'iil iyo Suuriya shuruudaha labada dhinac kala wataan maxay tahay arrinta Turkiga taabanaysa ee Netanyahu uu wataa oo imaan doona wararkaasi laakiin xagga Faransiiska aynu eegno Faransiiska waxa leeyahay kumanayaal kun oo muslimiin ah ayaa iskaga haajirtay wadankaas sabab la xiriira cunsuriyad iyo islaam nacayb warbixin amurahan la xiriirta
waxaa soo jeedinaya wariyahayaga Yaxya Ciise. warbixin dhawaan uu daabacay joornaalka Jacobin ee ka soo baxa Mareykanka ayaa muujiyay kororka islaam naceebka Faransiiska iyo saameynta xun ee arintaasi ku yeelatay dadka muslimiinta ah ee dalkaasi ku nool. warbixintu waxay ku saleysan tahay natiijada buugga ciwaankiisu yahay Faransa You Love It But You Live It oo ay qoreen saddexda qoraa Olivier Steve, Alain Bicat iyo Julian Talbot, kaasi oo lagu tilmaamay jawiga naceebka ee sii kordhaya ee ka dhanka ah muslimiinta, taasi oo ku qasabtay kumanaan muslimiinta Faransiiska ah inay dalkaasi ka haajiraan. qoraayaasha ayaa qiyaasay ilaa 200,000 oo muslimiinta Faransiiska ah in intooda badan ay yihiin dad wax bartay ayna ka tageen dalkaasi iyaga oo aaday wadamo dhaqamadoodu ay isku dhafan yihiin sida Britain iyo Canada. muhiimadda socdaalkooda waxa uu ku saabsan yahay isku darka takoorka joogtada ah, dambiyada naceebka ku saleysan, islaam naceebka iyo eexda nidaamsan ee ka jirta nolosha dadweynaha Faransiiska. qoraayaasha ayaa waxay diiwaan galiyeen 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan 2025 in la diiwaan galiyay 79 dambiyo islaam naceeb ah, kaasi oo lagula kacay dadka muslimiinta ah, taasi oo kororkeedu uu yahay 70% marka la barbar dhigo isla muddada sanadkii 2024 sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Faransiiska. falalkaas waxaa ka mid ahaa dhacdo argagax lahayd bishii Abriil oo lagu dilay muwaadin lagu magacaabi jiray Abubakar Ciisa oo ka soo jeeda Mali, masaajid ku yaala koonfurta Faransiiska. bishii May waxaa magaalada Orleans lagu arkay boorar ay ku qoran yihiin meel aan muslimiintu aysan ku socon karin oo wata sawirro haweeney xirxiran iyo sidoo kale dad salaada ku jira oo dusha laga saaray calaamadda mamnuuca ah, taasi oo muujinaysa baaxadda naceebka sii kordhaysa. waxaa la sheegay in falkaasi lala xiriiriyay nin qolyaha Naaziga ah oo hadda xabsiga ku jira, taasi oo astaan u ah khatarta sii kordhaysa ee muslimiinta ay kala kulmi karaan Faransiiska. qabiirada ayaa sheegaya in go'aanka ay ku haajirayaan muslimiinta Faransiiska uusan ka dhalanin dhacdooyin gooni ah, balse uu yahay natiijo isku urursan cadaadis joogto ah iyo xadgudubyada qarsoodiga ah ee maalin walba ah. qaar badan oo ka mid ah muslimiinta laga wareysta buuggan ayaa la wadaagay waayo aragnimo naxdin leh oo ay ku jiraan dhibaatooyin joogto ah, cagajugleen iyo takoorka hay'adaha dowladda. sida lagu sheegay warbixinta joornaalka, sahan la sameeyay ayaa muujinaya 3/4 ka mid ah dadka haajiray ee ka tagay Faransiiska inay ka fogaadeen falalka cunsuriyadda iyo takoorka, halka 64% ay muujiyeen rabitaankooda ay ugu dhaqmaan diintooda si xor ah. waxaa sidoo kale ay tilmaameen in warbaahinta Faransiiska iyo hadallada siyaasadeed ee caadiga ah ay sii hurinayaan xaaladda, iyadoo ay soo baxayaan barnaamijyo muuqaalo ah oo lagu cambaareynayo dhaqamada islaamka sida xirashada xijaabka. warbixintu waxa ay ku eedeysay madaxda siyaasadda ee Faransiiska inay door weyn ku leeyihiin kobcinta islaam naceebka, iyadoo dowladda madaxweyne Emmanuel Macron ay kala dirtay ururadii ka hortagi jiray islaam naceebka, taa beddelkeedna ee meel marsatay siyaasad lidi ku ah muslimiinta, iyadoo oo sheegtay inuu yahay dagaal lagula jiro gooniisutaaga bulshada. ugu dambeyntii bal waxaynu qoraansanaynaa warkan ku saabsan dalabka Netanyahu uu gudbiyay maamulka Trump ee la xiriira in dhexaadin laga sameeyo Israa'iil iyo Suuriya. haddaba aynu eegno war amurtaasi ku aadan oo wakaaladaha wararku ay qoreen. ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka codsaday Trump inuu dhexaadiyo Israa'iil iyo dowladda cusub ee waddanka Syria. sidaasi waxaa qoray bogga wararka ee Axios ee laga leeyahay waddanka Mareykanka. intii dhawaan uu booqashada ku joogay Israa'iil, Tom Brack oo ah ergeyga Trump ee Syria ayaa waxaa loo sheegay rabitaanka Netanyahu ee ah heshiis cusub oo amni oo fura u noqon kara heshiis nabadeed. mas'uul Israa'iili ah ayaa waxa uu yiri waxaan rabnaa inaan si degdeg ah uga dhaqaaqno caadiyeynta xiriirka Suuriya. horay Israa'iil waxay dowladda ku meel gaarka ee Syria ugu eedeysay inay tahay wasiirada u dhigtay argagixiso, iyagoo tixraacaya xiriirkoodii ka dhaxeeyay nidaamyada imika ka jira Syria iyo kooxihii markaas ka dagaalami jiray waddanka Syria, gaar ahaan Ahmed al-Sharaa oo mar ka mid ahaa xubnaha al-Qaacida. waxayna bilaabeen weerar cirka oo Israa'iil ku beegsanayso gudaha waddanka Suuriya, laakiin waxay yiraahdeen weeraradu kadib markii Trump uu ka qaaday Syria cunaqabataynta, isla markaasna magaalada Riyadh uu kala kulmay Ahmed al-Sharaa. Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa in ay doonayso xiriir in la sameeyo Suuriya. horay waxaa dhacay baa la yiri xiriir dhex maray labada dhinac kuwaasi oo ka dhacay dalal saddexaad. Israa'iil waxay u soo bandhigtay
ergeyga Mareykanka Syria dhowr shuruudood oo ay doonayso in haddii Axmed al-Sharac uu fuliyo ay heshiis la geli karto. Heshiiskaasi waxaa ka mid ah shuruudaha Israa'iil ay wadato in Turkigu wax saldhig militari ah aanu ka samaysan karin gudaha waddanka Suuriya, in la joojiyo ama aanan la samaynba wax xiriir ah oo lala sameeyo Iiraan iyo Xisbullah, iyo in koonfurta waddanka Suuriya laga dhigo meel ka caagan ciidamada iyo hubka. sidoo kale waxay doonayaan in ciidamada Mareykanku qayb ka noqdaan kormeerka heshiiska xabad joojinta labada dhinac. Shabakadda Axios waxay kaloo sheegtay in hoggaanka cusub ee Syria uu u muuqdo in uu diyaar u yahay heshiis in uu la galo Israa'iil, laakiin shuruudda ugu weyn waxay tahay Israa'iil inay ka baxdo gebi ahaanba buuraleyda Golan ee Israa'iil ay qabsatay dagaalkii Carabta iyo Israa'iil dhex maray. Arrintaasna waxa leeyahay waa arrin aad u culus, iska badaa dhulkan hadda ay qabsatay markii xukunka laga tuuray Xaafid al-Asad. Axmed al-Sharac wuxuu ku xirayaa baa leeyahay shuruudda ah Israa'iil waa inay ka baxdaa dhulkii ay qabsatay 1967 dagaalkii Carabta iyo dhex maray Israa'iil, iyo sidoo kale dagaalkii 1973 dhulka ay qabsatay sidoo kale. Marka Netanyahu ma aqbali doona isagoo doonaya hadda inuu dhul hor la ka qabsado Suuriya inuu ka baxo Golan oo isi siiyey. maxaa yeelay hadda wuxuu ka howlgalaa ciidankiisu marka qaarkood ay tagaan deegaan kale Khwantar oo u jira 25 kilomitir oo kaliya magaalada Dimashq. arrinta marka su'aal waxay noqotay la isweydiinayo. aynu arki doonaa wuxuu ku soo kordhay arrimahaasi. inta ayaan ku soo gabagabeynayaa saaka barnaamijkii waana ku bahsan tahay daawashada barnaamijka. haddaba wararkan xasaasiyadda ee soo dhacaya iyo macluumaadka iyo wararkan xulka ah ee aanu soo gudbino si aysan kuu dhaafin ku soo biir